قال لي موسى وحي موسى وخلدي موسى وخلدي إنه من قلدني ما يسقط ما يطلعيان تلا لقالي تالو وحكينا الشيء لابد حسبي معارض يديجان كلاجب تاريخ وديجان لاجب على عرقاو سنة إلا يهرجيس قام بيصور صار عليهم طورش أنت مدحوينه دلك يا كده مايسو تيبان كعلين هذا موسو وحتكون شيء كيسا وشيء كيسا قال لا بس على إيكودي أبتسلا يبلغ مكوديني عد باتكو بحيسا كرسي جن قفك أقول إلهي مكانية لكن كسر مسكح هذا وحن دونه أنا موسى بيحيها أيها كسر عن سومالان حاشا لله كسر عن ميسو أنت إلا بانك هاينا إنا لبضي حسبي إنا وكذا سيمنا وقت وكاد حي إنا أنقنا طلابق عندنا تاسو كلا وحسوا وين يا راجع عبد الغني قال شعب ينسو وين يا حسن الشيخ موقف يصير تاعي أنت سي أوديني ما أيوة قضية السومالان إيو يقولي هي الناس عنو يصير تاعي وكأودي وعقل إلي وحلينا هاي همبليو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما هدله سبحانه وتعالى إلهي ما هدله إلهي كريم ما هدله سبحانه وتعالى والله علي مركه ولي سبحانه وتعالى إلهي ما هدله إلهي أنا بتقري يوسف علي الدلكيني من هاك سنة وحنا آدي أدو ما هدنقيا تذكي قرب تشوقها سلمان تو حسين يكون يقول هذا سلمان سيديتو كيمي دردانك المانتي السمية يعني اللي مانتي يالي نموذج بربرناه سحوق لها على دبال دو أي كسوت جوابتين وما سنتين مركا لي مرت هذه مر أفراد وحن حنبليانيها إذا مدينة سمتشيت ياشا حق الدركة حنبليانيها إلهي جوشاي نسيو والدك قردني هاي إلهي جوشاي نسيو وحنا كعصنا يا الدولة إن الدريشو ضدك داوعمي dagaalkaas isla markaasna agoomihii ku agoomeyna in laga warhayo oo la dayactiraan dawladda aan ka codsanaya walaal maanta waxaan jecelahay inaan ka hadlo dalkeenu maanta xaaladiisu halku maray waan arkaysaa waxa weeye nasiibo aan inagu keenay maamulka maanta dawladda uu ka madaxaha musabix ayaa maanta dalka halkaa keentay dadkii waxaa galay niyad jab waxaa galay warwar waxaa galay shaki hadda nabadii baa khatar ku jirta laascaanood marka laga tago intii kale Somaliland oo kala shakisan ayaa ku jirta waxaan idin sheegay horta doorasho ururo dhici mayso raga doorasho ururiyo reerkiina hadduu ku codeeyo ya kale ku codeynaya reerba inaa mid buu furtay وحسوق تنقلنا معها شرعنا ماله أدوك أنا كما دعوا وحكينا الشيء لابد حسبي معارض يديجان كلاجب تاريخ وديجان لاجب على عرقاو سنة إلا يهرجيس قام بيصور صار عليهم طورش أنت مدحوينه دلك يا كده مايسو تيبان كعلين هذا موسو وحتكون شيء كيسا وشيء كيسا قال لا بس على إيكودي أبتسلا يبلغ مكوديني كومو كودين كلا الشعب كومو كودين سليمان قال متشرو دترين وحي أينو أنكو يشينا ستيك هولدرز كينا أيها شرعيين شري واتوجي تقدم مثل بدين أنا سكوت لي مركب أبارت جرتي ديدي سي إن السيران يلو كوديو سيتسجل كبلون ودي ديدي وحي أنا كل شيء لا بلا سيداي نوين بعدها ومدحنا لما جيسي تورتي اسكدا وحان شيرين ugu sheekaysan dadka waxaan leeyahay hada markaas waxa ku leeyahay la sideetanki maxamed shaab barnaamij halkan yimid la tuurtuuri doono xaaji xaruuri oo reer gabilaha aqalkaas wuxuu yiri hartininka la dabada hayo ma kacayo in yarkan waqti burburtay Soomaali maantana Soomaaliland dabad adaa haya haddaan dhaxyana ka heshiinin
oon inagu wax ku heshiin oon dadku wax ku heshiinin wax ad kaliya wadi kartaa ma jirto dalku waa khatar gelinaysa taa ku qabsha dalkana cod baad ku heshay waan ku taanideynay cod baad ku baxaysaa kursigan qofkii u qoray ilaahay baa keenaya laakiin ka saar maskaxdaada waxaan doono anoo Muuse Biixiha ayaa ka soconaysa Soomaaliland xaasha lillaah ka soconaysa inta ilaa baan ka haynaa inaan labada xusbi inaan waa kula siman waqtigu ka dhacay inaan anaguna talaabo qaadna taas oo kala laakiin dadkan u turina cadowgaanu ka celinaa leeyahay cadow idku farx ishaysashadeennu waxay noqonaysaa jiititaanka iyo halista qaranka gelinaysa noqonaysa isku keen kaale wada hadal leh bal waxaad islaha ay leedahay sharci baan hayaa leedahay sharci baan hayaa ilaalinaya bal anaga natus sharci haysi sharci ku fasaxaya inaad iska joogtid tiol aan lagu kordhin oo sharci ku joogtid sharci ku fasaxaya inaad ururaan bala sharciya oo adduunka inaad samaysid oo labada doontid soo saarto tahay oo la isdilo reemaana dhacay bal noo sheeg waxaan taasna waa taas waxaan jeclahay inaan u sheego deegaanka reer Laascaanood habeenka waan ka seexan kara waaya markaan xasuusto waxa maanta ka taagan Laascaanood iyo markii ugu dambeysay seexad maanta waxaan arkay kufsiga halku mariyo khamrigu halku mariyo dilka halku mariyo dadkii qaxay si ku noolyihiin oo raaciya waxaan leeyahay waxaan suurta geliyana aku hay ma gelisaane Soomaaliland la kala jarjari maayo oo Soomaaliya sharciga sameeyay intisaas sameeyay oo lixdii gobol baa lagu noqonaya lixdii gobol ee siyaad bare oo inflation ku sameeyay oo degmooyinkii beebeenta lagu noqonaya oo waa la istirinaya say anagu aan yeelay in lixdii degmo ee Soomaaliland aan ku celin lix gobol ka noqonay idinkuna lix gobol baa haydaan oo lix degmo ahayn lixdii gobol ay ku noqonaysa nabad qaatane oo dadkina ka naxa waxba atagina Muqdisho iyo Jabuuti dilisay iyo inay dilimaysa idinka caruurtii dilay tala xumaantiina dilisay galad jaamaca Ismaaciilo saaxiib waxaan ku leeyahay dadka badbaadi maanta kale waxa lagu kala baxaa raganimadu waa qofka nabad qaata wanaag qabta waxaan soo dhaweynayaa raaga Cabdiqani galad jaamaca soo dhaweynayaa waxaan shacabka Soomaaliyeed waa garaadkii aabihii waa ogtihiin waa ninkii halganka nala galay beeshooda waa ogtihiin waa la soo dhaweeyay waa too late mar hore ahayd in garaad in Cabdiqani raage mar hore iyo dadkiisa la soo dhaweeyay waxaan baleenayaa Xasan Sheekh mowqifkiisa taagay anta si odaynimo ah ay qadiyada Soomaaliland iyo gudaheeda Laascaanood iska taagay oo ka odayeeyay oo caqli celiyay waxaan leenahay hambaliyo hindisi bayda ku qaadateen wada tashana wana soo dhaweynina sharcigiinu ma muuqda muuheen inuu saddex shar adduun ka socda system midna muuheen president system ma ahayn parliamentary system ma ahayn oo askari biyaysan idin wasaari kaay beedna ma ahayn ka isku dhex jira midna ma ahayn ina wixiina qayaxdaan oo saan u qayaxdaan oo president system qaadataan parliamentary system ku wadamada soo koriya ma waaro dawladdu ma waarto kullu wala rida wada arkaa Pakistan ka taagan baarlamaanka kolba ka adoon sameeyo president system samaysa istiriya dadka badan ee xuquuqdooda ku tumanaysan xaqooda siiya ya qof kasta intuu laama kala tiriyo ya shacabka lagu ridayaa taas cadaalad laakiin ham iyo been lagu noolaa 30 sano Soomaaliya isku daray ee keenay burburka ee xasuuqa keenay kala xadan leeyahay taas waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya hala duceyso madaxweynaha waxaan leenahay haduu talada qaadan waayo waa laga tashanaya waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya waxa gaarka Soomaaliland qof qura qaldan gaaliye musu qalday inuu ma qaldan ma iska qameeno talayaan tala la gaari talo
waxaan kala dadka ugu yeerayaa inay kaararka qaataan kaararka si fiican u qaata ismuujiya codkiina muujiya insha Allah tacaala doorasho wanaagsan baa inoo dhici doonta insha Allah tacaala inagoo intii ka xoog badan oo ciidankeenu ka xoog badan yahay oo ka midaysanahay ayay naga dhamaan doontaa mushkilada Muuse iyo mushkilada Laascaanoodba labada mushkilood Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga fufri doono wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh